السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha dhammaan meel kastood joogtaanba kusoo dhawaada janalkeenan intaas kadib shacabka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maamul goboleedyada maxaa looga bannaan bixi waayey maadaama Itoobiya doonayso inay badda Soomaaliyeed ay xoog ku qaadato iyadoo 1 January 2024 heshiis la gashay maamulka Somaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida sharciga ah walaalahina Somaliland waxay sheegaan inay Soomaaliya ka go'een 1991 heshiiskii Burca iyo kii maaragtay awdal state ku sameeyeen intaba isku dar waxay noqotaba inay Soomaali ka madax bannaan yihiin dawlad madax taagan madax bannaan ay yihiin oo gooni u taagan laakiin nasiib darro intaasoo sano caalamka muusan aqoonsanin caalamkiina lama shaqaynin mar walbana waxaa loo qiimeeyaa inay tahay maamul ka tirsan waddanka Soomaaliya maadaama koonfurta Soomaaliya ay dagaalo sokeeye ka jireen oo awood badan lahayn Somaliland fursadaasi dayacday walaalahay dhageysanay reer Somaliland maskaxda inay furaan ay u baahneed waqtigii dayacan waxayd intii koonfurta baaba'saneed inay iyaga ay hoggaanka qabtaan oo ay Soomaaliya dhahaan annagaa nabadeynayna annagaa u joogna annagaa dadkooda ah laakiin siyaasiyiintoodii waxay cabsiyeen inay yihiin Soomaaliya ay tahay cadowga koowaad arrintaasna waa arrin qalad ah aniga ma qiranayo weli dadka iyaga ka soo jeeda dhammaantooda qiranayaan oo leh arrintaas sax ma haddii dowladda dhexe siyaad bare ee wax gumaatay shacabka koonfur joogo muuse waxba gumaadin dadka ku nool koonfur waxba maysan ka hadlayn walaaladooda labada dhinacba waa dad walaalo ah inama almu'minuuna ikhwa diintaas iyo dhaqanka iyo af soomaaliga iyo waxaasoo dhan ayaa dadka mideeya sidaa daraaddeed wax badan waa dad isku jiir ah isku jinsi ah isku dad ah lahjadaha ha kala duwanaadaan laakiin waa dad un isku si ah dhaqan ahaan iyo fikrad ahaan marka dadka shacabka waxaa la rabaa inay fahmaan siyaasiyiinta dana gaaray wataa mar walba marka maadaama fursaddaas ay u suurageli weysay Somaliland oo hadda koonfurta Soomaaliya awood ay soo yeelatay marka siyaasiyiintii waxay isku hayaan weerar marka waxa waaye danihii waddanka iyo maaragtay lahaanshihii waddanka ayaa gacanta ka baxaya annagoona qofna difaacayna runtii laakiin xaqa rabno mar walba inaynu xaqa ka dhawaajino xaqana dadku ay kugu nacaan ama runta markaad sheegto runta ma jecla dadka waxay rabaan sidii dowladdii kacaankii guuladoo siiyaad in sacbada loo tumo muuse biixi noolo la dhaho kuwanay hor fadhiya hadda la yiraahdo idinka jirow jooga sidaasay doonayaan oo danahooda gaarka ay iyaga ku qabsadaan oo daare ay ka dhistaan Nairobi iyo Imaaraad iyo waxaad ku magacaawda oo ay waddankooda xitaa ay wax invest aysan ku samaynin waana la socotaa kulli dhaqaalahooda dibadda wada yaala marka la rabaana maaragtay la fadhiisiin karaa haddii dowlad fiican la helo marka intaas kadib maamul goboleedyadan meeshan iga muuqda deeni u dambeeyay hadda madaxweynaha ku guuleystay Puntland dagaal badan uu soo maray dartiis waxaan leeyahay madaxweyne deeni kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmo usbuucyo ka hor gacanta u gelisay inaad dalka iyo diinta iyo kulli difaacayso siyaasadana ama waddankana xasan sheekh maxamuud iskama lahan waddanka Soomaaliya iska leh haddaad idinka siyaasadda isku haysaan taa macnaheeda ma ahayna waddanka u burburinayso maadaama markii dowladda Soomaaliya soo saartay ayaa dad Itoobiyaan ah ama saraakiil aad ku soo casuumaysay magaalada Puntland arrin saxna maaha arrintaas waa wax dastuurka Soomaaliya ka hor imaanaya wax jiritaanka Soomaaliyeed ka hor imaanaya shacabka Soomaaliyeed marka maxaa la gudboon waxaa la rabaa inay fiiro gaar u yeeshaan raggan qaarkood Cabdicasiis isaga ciidamo Itoobiyaan ah dul joogo waaba la haystaaba isaga ciidamadaas lafta garan ninka la yiraahdo ayaa haystaba marka qaarna diyaarad gaar ah loo soo diraabo
si kastaba ha noqoto laakiin waxaa la rabaa inay dadkoodii ku baraarujiyaan haddaysan iyaga waxba qaban karin dadka inay yidhaahdaan war banaanbaxa oo maaragtay muujiya waxa aad dareenkiina shacabeed muujiya laakiin waa nasiib darro waa runtii marka waxaan dhihi lahaa madaxweynaha laba problema jiro international problem iyo national problem internal problem iyo external problem internalka problem nimankaana inaad problemkooda xaliso waayo waa sida aniga aan qabo runtii madaxweyneyaashii ka horreeya halkaan ku sawirinaa ujeedo farmaajo iyo sheekh shariif intii awoodooda way soo hadleen waddanka uturis ay u turayaan iyo ka naxis ayay usoo jawaabeen laakiin dadkii mas-uuliyadda ku fadhiyay eeday soo jawaabi waayeen soo nasiib darro maa nasiib darro weyn marka waxaan leeyahy shacabka soomaaliyeed nimankan taarikh madow ha lagu qoro nimankan aragti dheeraad ha loo yeesho waa niman aan dhihi karo runtii qarannimada soomaaliyeed meel unbay ka taabanayan marka waxaan leeyahy nimankaas waxay u baahan fiiro gaara dowladda soomaaliyeed waxay ku ammaanan tahay tallaabooyinkii qaaday diblomaasiyadda ah madaxweyne xasan sheekh oo horeeyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dhammaanba iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka intaba intaas waa qofka mararka qaar waa looga hor yimaadaa wixii siyaasadda laakiin mararka qaarna wuxuu galo dee wuxuu qabto qofka waa loo qiraa lama xaqiro soomaalida iyaguma isxaqirta dadka qaar dadka lama xaqiro si kastood mucaarad ugu tahay oo meelo qaar weakness jira wasaaradda arrimaha dibadda wasiir awood badan inuu weli gacanta lagu hayn haddana waxa waaye waa tallaabo fiican ayay dowladda qaaday way ku ammaanan yihiin waa in lagu taageero lagu garab istaago oo lagala shaqeeyo xaqiiqdii annaga waxa waaye ka shaqsi ahaan dowladdeyna ma necbi waxaan rabaa dowlad awood leh oo wax qabanaysa inay noqoto oo diblomaasiyadda caalamka la shaqaynayso caadaqaatiyaashana ay meesha dhaafaan oo waddanka loo shaqeeyo waxaa isweydiin mudan dalka ma lahan miyaa nimankan maamul goboleedyada waxaa cad inaysan lahayn iyaga ay maaqan meelo kale may u shaqeeyaan oo heshiisyo kale maa lala galay marka waa dalka waa in dowladda sida ugu degdeg badan kula u qabato nimankan maamul goboleedyada daaqadaha etoobiya kasoo galaysana in la xiro daaqadahaasay kasoo gashaa maamul goboleedyada mid diyaarad loo soo dira iyo mid loo yeera iyo mid taleefon loo soo wacaba mid farta loogu fiiqa dhammaantood waxay u baahan yihiin in meel la saaro horta internal problem inkastoo waxaanoo dhanba ay nimanka imaaraad gadaal ka fadhiyaan behind scenes waxa lagu magacaabo daaha gadaashiis insha allah cashar gooni oo sawiraan keeni doonaa oo ku salaysan imaaraad dadku gacantu ka hayo horta yay yihiin su wax u wadaa cadaawadiisa maxay tahay xaggey jirtaa waxaasoo dhan kusii dheeraan maa insha allah booqasho madaxweynaha axaddii shalay ahayd wuxuu ku tegey maalin kastoo isniin ah waxaan idiin soo gudbin doonaa insha allah wixii arrimaha soomaaliya kusoo kordhay inta xaaladan cakiran loogu jiro booqashada madaxweynaha 21 bishii ee waddanka masar ku tegay horta waa guul siyaasadeed madaxweynaha si aada u qiimo badan ayaa loo soo dhaweeyey laakiin masar ma ahin waddan laysku hadlayn karo sida turkiga oo kale sababtoo ah masar fursadda ay etoobiya uga aargudata ayay heshay masar biyaha niilka ayay etoobiya ka dhacsan weysay meeshan waxaa ku yaala etoobiya grand resency dam wax lagu magacaabo ayaa ku yaala biyo xireenka ay etoobiya samaysatay marka koowaad ha buuxin wejiga koowaad waa buuxisay maysa dheges kii labaad ha buuxin ilaa heshiisay iyadii suudaan iyo markii dambena markii soomaaliya hadda iskhilaafeen masar waa ka baxay tiri heshiiska sababtoo ah waa fursaday diyaarinaysa marka waxaan leeyahay haddii marka falanqeeyayaasha waxay leeyihin siyaasadda haddii etoobiya ay siyaasad la timaado oo masar tiraahdo biyahan kuusii dayn oo maaragtay niilka farahan kaaga qaaday hooshiisa biyo badan baad helaysaa reer masar xasan sheekh maxamuud daaqadii ka saaraya masar sababtoo interest waddan kasta wuxuu leeyahay interest gaar ah dana gaar ah marka waddan laysku hadlayn kara ma ahin haddii wax tarayso masar marinka qaza rafa ayay gargaar gaarsiin lahayd oo baabuurtii meesha dhooban yihiin oo israa'iilay leeda car soo mara libiya ayay janaal xaftar taageerayeen haddaad la socotaanba iyaga
iyo imaaraat iyo faransiis iyo dhammaan reer galbeed oo dhan ilaahay muxuu qadaray ilaahay waa caadil waa sida hadda walaalaha xamaas loo gumaaday caalamkao dhan u taageeraya wixii reer galbeed ahay oo maaragtay gabaraga gaaban ugu fadhiyaan ilaahay muxuu qadaray marka in wayamkuru allah wallaahu khayru maakirin waa dhagaray wadaan ilaahayna wuu dhagray iyaga marka nimankii xamaas waa kuwaas hadda ilaa hadda waa noolyihin waa lasoo qaqabana lalahay wax lasoo qabtani ma jiro marka waxaan ka wadaa xaftaray taageereen indhahooda shanta ayaa dowladda turkiga ciidamada dowladda dhexe libiya ayay heshiis la galeen military defence kadibna diyaaradihii droniska lagu soo daabulay ilaa iyagoo dhanba laga dhigay maaragtay la xuray oo ilaa hadda turkiga waa taas uu awoodda dowladda dhexe u gacanta ku hay marka waxaan dhihi lahay madaxweyne kheyr allah ku siiye waa dadaalaysaaye laba arrimoodaa ku hor yaalo masar waxba kuu qaban mayso meeshaad masar heshiis difaac kala gelayso ama aada leedahay ciidamaa u baahannahay inaad istanbul iyo ankara tagtay ahayd kuwaasaa istaahila kuwaasaana suuragal ah inay wax badan kala qaban karaan dad badan waxay isweydiinaya turkiga ma degano ma muhiim maahin waddankana heshiis difaaca wuu la geli karaa wax dhibaato ahna ma jiro laakiin waxaa ka horeyso wiilkii yaraayo ka taagtay oo cabdiqaadir wasiirka gaashaandhigga heshiisyaduu la galay weli waan taagana heshiisyaduu la galay dowladda etoobiya miiska ha la soo saaro wixii ku qornaa ha la caddeeyo marka waxaan leeyahay walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba ilaahay waxaan ka rajayn subxaanahu wa tacaala inuu waddankaas waa loo tashtaye kuwa internal gudaha iyo kuwa dibadda u tashteen ilaahay inuu waddankaas badbaadiya ummadda soomaaliyeed cadowgooda ka qabta soomaalina dhexdooda burecad ilaahay u mariyo oo uu ilaahay u abuuro isfahan iyo isu soo dhawaasho ah madaxweynuhu waxaad ku dhawaaqtay soomaali heshiisa dunida heshiisa hadalkaas waa lagaaga fadhiyaa dadkaagii heshiis maaha internalka waxaa lagaa rabaa dadka inaad gudaha heshiisiiso oo aada isu keento oo aada wanaagga ka shaqayso intaan arrimaha dibadda waxaad qaban karta waa qabatay insha allah muuqaalada xiga waxaa la wadaagi doonaa african union waxaad u haysatiin inay yihiin niman soomaaliya taageersan sheeko kaloo ka weynay wadan iyaga iyo arrin kaloo soo korodhay ah baryihii hore baarlamaanka waxaa la geeyey waxa lagu magacaabo arrimaha jinsigii arrimihii jinsiga waa la xarfaaneeyo xuquuqda caruurta loo bedelay arrimo noocaas insha allah kuwaasaan rajaynaya inuu idinka daba keena insha allah kheyr badan baa idiin rajayn intaan ku kulmayno kulan maaragtay mid la mid a wax idinkaga tegay amaanaal